ciid wanaagsan akhyaarta nala socotay jimco wanaagsan meel kasta aad joogtaan waa 20ka Maarso sanadka 2000 iyo waliba 26ka qodobo waaweyn ayaa ka soo kordhaya dagaalka bariga dhexe ku saabsan xiisadu waa sii xoogeysanaysa daqiiqada ka dambaysa maanta dawladda Iran waxay lumisay laba kamid ah saraakiisheeda sarsare oo kamid ah ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran iyo ciidamada kale oo baasij loo yaqaano laba mas'uul ayaa duqeyn lagu dilay maanta oo jimco ahayd gudaha dalka Iran weeraradaasi waxa ka dambeeyay kooxaha isbahaysanaya Mareykanka iyo Israel sida khubaro kala duwan ay tilmaamayaanba wararka soo baxaya haddaba jagooyinka ay hayeen shaqooyinka ay qabanayeen muhiimadda ay u lahaayeen dagaalka hadda soconaya ayaan rabaa inaan idinla wadaago inta barnaamijka aan falanqeynayo waxaan sidoo kale eegi doonaa war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo tilmaamaysa in gantaalihii ugu badnaa ay ku dhaceen markii dagaalka ay ku jireen 21 maalin ee la soo dhaafay oo ciidamada Iraaniyiintu ay sameeyeen duqeyntii ugu xoogga badnayd isla wararka soo socda haddii aan eego aan barnaamijka ku faaqidi doono khiyaarta in nala socotay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo xaalad jahwareer siyaasadeed ku jira kadib markii xalay duqeymihii ugu bacnaa lagu baabi'iyay magaalada Haifa oo ahayd magaaladii dekedda lahayd isla markaana la bartilmaameedsaday xarumihii wax soo saarka shidaalka ee nidaamka kayaanka Israel haddaba arrintan sidee u saameynaysaa kuraastiisa baarlamaanka iyo waliba aqalka kaniisadda saaka xaaladiisu la leeyahay ma fiicna wasiirka amuraha dibadda ee dalka Iran Abbas Araghchina waxa uu la hadlay dhigiisa wadanka Ingiriiska iyadoo la isla soo qaaday xalka dagaalkaasi laga gaari karo ilaa iyo 5 dawladood oo Ingiriiska, Faransiiska, Japan iyo Jarmalka iyo Holland ay kamid yihiin ayaa dalab xasaasi ah hor dhigay dawladda Iran xilli ay doonayaan in la badbaadiyo wadamada qaliijka laakiin dagaalka dawladda Iran ay wajahayso ilaa iyo hadda waxba laga soo qaadin gobolka bariga dhexe mustaqbalkiisa maxaa lagu tilmaami karaa maanta shacabka magaalada Qasana dhowr sano oo dhibaatooyin iyo dihaal ay ku jireen sidee maanta u yeedayaan waa idin la wadaagaya meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada ku soo biir YouTube-ka oo subscribe saara haddii dhinaca Facebook aad nagala socotana sharaf bay noo tahay inaad follow-na soo tiraado aad nagu soo biirtaan aad baad u mahadsantihiin maanta gudaha wadanka Iran waxaa lagu dilay afhayeenkii ciidamada ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga Iran waxa uu sidoo kale hayay xafiiska xiriirka dadweynaha ee ciidamada dadka la dilay waxa sidoo kale kamid ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa hay'adda muqaabaraadka ee Passage iyadoo lagu soo waramayo in labadan mas'uulba lagu dilay duqeymihii ugu dambeeyay Israel waxay fulinaysaa mid kamid ah weerarada ugu badan ee lagu bartilmaameedsanayo madaxda Jamhuuriyadda Islaamiga Iran si ka bedelan dawladda Mareykanka oo ay hadda xulufo yihiin oo ay dagaalada ku wada jiraan haddaba duqeyntan marka laga yimaado mas'uuliyiintan la dilay xilalkooda maxaa lagu tilmaami karaa sidaysa qaar kamid ah warbaahinta gobolka bariga dhexe uga qorayaan sheekooyinka dilka raggan telefishinka Al-Arabiya haddii aan eego waxa uu leeyahay afhayeenkii ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa la dilay kadib markii weerar cirka ah oo ay fuliyeen Mareykanka iyo Israel sida ay xaqiijiyeen ila rasmi ah oo Iraani ah afhayeenka oo lagu magacaabi jiray Ali Mohammed Niani ayaa la sheegay in uu dhintay aroornimadii jimcaha maanta kadib markii duqeyn lagu bartilmaameedsaday gudaha dalka Iran gaar ahaan magaalada Tehran sida wararku ay sheegayaan hadaladiisii ugu dambeeyay waxa lagu tilmaamay ka horgeeradiisa Niani in uu sheegay in Iran ay wali wado soo saarista gantaalada inkasta oo dagaal culus uu socdo waxa uu carabka ku adkeeyay intii uu noolaa 3 qodob oo waaweyn waxa uu yiri warshadaha gantaalada Iran waa shaqeynayaan oo waxa ay reer galbeedku sheegayaan waa huf iyo waxba kama jiraan waxa uu yiri geedka gantaalada in uusan wax dhibaato ah qabin iyadoo xalay Mareykanku ay tilmaameen in la duqeeyay mid kamid ah warshadihii soo saaraya gantaalada ee dawladda Iran wax soo saarka waxa uu ku socdaa buu yiri xaalad u dhiganta mid dagaalka oo caqliga maskaxda iyo fikirka ayaa la isku daray
sidaa daraaddeed har iyo habeen ayaa la shaqaynayaa si looga hortago weerarada ba-an ay ku soo qaadeen gudaha waddankeenna ayuu hadalkiisa ku yidhi. waxa uu sidoo kale tilmaamay in heerka warshadaha gantaalaha iiraan uu yahay mid aad u sarreeya, isagoo ka jawaabaya hadalla ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha kayaanka Israa'il Benjamin Netanyahu oo sheegay in aysan awood u lahayn soo saarista gantaalada dowladda Iiraan. hadalkiisii xalay ayaa muujiyay saameynta uu ku leeyahay dagaalka, taasoo soo dedejisay durbaba Israa'il in ay beegsadaan. eedaynta Israa'il marka laga yimaado, militariga Israa'iiliyiintu waxay sheegeen in Niyani uu ahaa shakhsi door weyn ku lahaa faafinta dacaayadaha militariga Iiraan, isla markaana uu xiriir la lahaa kooxaha ay Iiraan taageerada weyn siiyaan ee gobolka Bariga Dhexe. hadallo uu jeediyey ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale muujinaya muhiimadda ninkan uu lahaa doorka dagaalka, maadaama fagaarayaasha iclaamka uu kaga adkaaday inta badan dhinacyada sida weyn uga soo horjeeda. markii uu mikrofoonka hor istaago, dadka gobolka Bariga Dhexe waxay eegi jireen fikirka dowladda Iiraan, gaar ahaan ciidamada ilaalada kacaanka oo ah kuwa ugu weyn ee hadda dagaalada ku jira. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa mar kale ku celiyay in Israa'il ay ku guuleysanayso dagaalka. waxa uu leeyahay in aan awoodda nuclearka Iiraan aan burburino hadda waxba nooga jirto, oo waxaa noo muuqanaya meel fudud in aan si kooban ku gaari karayno. warshadaha gantaalka Iiraanna waxay noqdeen kuwa la kala furfuray oo dhaawacmay. waxa uu yidhi boqolaal goobood oo gantaalaha laga rido ayaa laga dhigay cardaadiqada oo guud ahaantoodba burburay. waxa uu intaasi ku daray in Iiraan aysan hadda lahayn awood ay ku sii wado barnaamijkeeda nuclearka ama ay ku soo saarta gantaalo balastiga sida uu hadalka u dhigay. daqiiqado kadib dilka Niyani, afhayeenka ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan, waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay in la dilay mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee hay-adda sirdoonka ciidamada abaabulka dalka Iiraan ee hanaanka militariga u abaabulan ee Basaj la yidhaahdo, kaasoo dhowaan laga dilay hogaamiyihii ugu sarreeyey. sarkaal kale oo muhiim ah oo suuragal ahayd talada inuu la wareego ayaa isna lagu soo warramaya jimcadan maanta ah in lagu qaarijiyey gudaha waddanka Iiraan. Genaraal Ismaaciil Axmedi ayaa la sheegay in la dilay. Axmedi waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa mas-uul ka tirsan sirdoonka ciidanka Basaj oo hoos yimaada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga. warbaahinta Iiraan ee Tasniim ayaa sida rasmi ah u sheegtay inuu ku dhintay weerar ninkaasi lagu qaaday. waxay sidoo kale sheegeen in weerarkaasi lagu dilay ama lagu bartilmaameedsaday taliyaal kale oo muhiim ahaa oo nidaamka dowladda Iiraan ka tirsan. Basaj waa ciidamo u abaabulan hanaan militari ah gudaha dalka Iiraanna ka shaqeeya, kana qayb qaata amniga gudaha, la socodka mucaaradka iyo howlgallada sirdoonka. ninkan waxa uu lahaa door muhiim ah sida warbaahinta Tasniim ay ku warramayso. dilka sarkaalka sirdoonka ee Ismaaciil Axmedi lagu magacaabo waxay ka dhigan tahay in si gaara loo bartilmaameedsanayo hoggaanka amniga iyo sirdoonka Iiraan. inta dagaalka uu ku jirtay dowladdu waxa ay noqotay in ay hadda weynayso saraakiishii ugu sarreysay ee macnaha iyo meeqaamka ka dhex lahaa dowladda, taas oo ka dhigan hadda xiisaddu in ay aad u kululaanayso. warbaahinta Israa'iilna waxay ku warramayaan in ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu wajahayo cadaadis dheeraad ah tan iyo markii dagaalka dowladda Iiraan uu bilowday, islamarkaana dhibaatooyin xooggan ay hadda ka soo gaarayaan dhinaca siyaasadda. arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo xalay kaydkii shidaalka ee Xayfa la burburiyey, islamarkaana gantaalaha kalastarka ee dowladda Iiraan ay hadba si adag ugu dhacayaan magaalooyin kala duwan. warbaahinta kayaanku waxay sheegaysaa in dagaalka ka socda Iiraan uusan wax isbeddela ku keenin qaabka awood qaybsiga siyaasadda gudaha Israa'il xilli uu galay toddobaadkii saddexaad, sida ay sheegayaan ra'yi ururin uu sameeyey maxadka gaarka ah ee la yidhaahdo Lazar oo loo sameeyey baa la yidhi wargeyska Macaarif ee Israa'il. mucaaradka Israa'il ayaa heli karaya 60 kursi haddii doorasho degdega la qabto, halka xulufada ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay heli karayaan 50 kursi, halka xildhibaanada carabtu ay heli doonaan 10 kursi sida marka la eego baarlamanka nidaamkaasi haddii uu doorasho galo.
netanyahu ayaa muujinaya in dagaalka iiraan uusan wax saameyna ku yeelan taageeradiisa siyaasadda gudaha, laakiin marka la eego kacdoonnada mucaaradka ah ee ka imaanaya dadka iyo weliba in nidaamkiisa uu weynayo kalsooni fara badan ayaa qasbi karaysa in kuraasta qaar uu waayo. haddii xaaladan ay mar kala dhacdo, netanyahu waxa u baahnaan doonaa inuu helo xisbiyo kale oo bahwadaag la noqda si uu dowlad dhammaystiran usoo dhiso. waa haddii doorasho deg deg ee laadee 39% waxay aaminsan yihiin dadka reer Israa'iil ujeedadan inay bedeli karayso nidaamka Iiraan, oo haddii ay sidan dagaalada ku sii socdaan ay xaaladda dowladda Iiraan ay wax badan samayn karayso. ra'yi ururinta laga qaaday dadka Israa'iiliyiinta waxay leeyihiin 18% waxay qabaan in la doonayo burburinta barnaamijka nuclearka dowladda Iiraan ay leedahay. 11% waxay ku tilmaameen burburinta gantaalaha iyo diyaaradaha droniska inay muhiim tahay. qaar kale waxay xuseen in ujeedooyinka sida joojinta weerarada ama soo saarista nidaamka uraniumka dowladda Iiraan ay tahay mid aad u xoogaysanaya. marka la eego dadka Israa'iiliyiinta ra'yi ururinta laga sameeyo waxay muujinayaan in dowladda Iiraan ay hadda noqonayso dowlad awood leh oo dagaalkan socda aysan wax weyn ka bedeli karin. dagaalka maanta waxa uu galay maalintii 21aad iyadoo weli ciidamada Israa'iiliyiinta iyo Mareykanku ay beegsanayaan madaxda sare ee nidaamka kacaanka iyo weliba madaxda saraakiisha ah ee ciidamada dagaalka hogaaminaya. laakiin dhinaca kale Iiraan waxa ay burbur xoog leh gaarsiinaysaa ilaha dhaqaalaha ee gobolka, si gaara dowladaha Carabta iyo Israa'iil, tan oo hadda dowladaha qaar ku qasbaysa in dagaalka la soo farageliyo. wasaaradda difaaca ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in dagaalka markii uu bilowday ilaa iyo hadda lagu weeraray 338 gantaal oo plastic ah, 15 gantaal oo cruise ah, 1740 diyaaradood oo drone ah tan iyo bilowgii dagaalka. waxaana ay sheegeen in ay qabteen gantaalo fara badan, isla markaana diyaaradaha dagaalku ay noqdeen kuwo xoog leh. warar laga helaya ilaha amniga ayaa sheegaya in 40% duqeymaha Israa'iil ay beegsadeen gudaha ciidamada amniga iyo xarumaha gudaha dalka Iiraan. saraakiisha sirdoonku waxay tilmaamayaan in nidaamka Iiraan uusan weli burburin, isla markaana uu gacan weyn ku hayo maamulka dalkaasi, dadkuna ay siinayaan taageero ka bedelan kii ay hore u qabeen, tan oo dhabar wareemaysa filashadii Israa'iil iyo Mareykanku ay qabeen. Mareykanka ayaa la sheegay in uu leeyahay 4 ujeedo oo waaweyn oo ay ka mid yihiin dagaalkan: burburinta gantaalada ee dowladda Iiraan ay haysatay ee balastiga, daciifinta awoodda badda ee ciidamada dowladda Iiraan, ka hortagga hubka nuclearka ee dowladdaasi, iyo kala goynta xulufada Iiraan ay gobolka bariga dhexe ku leedahay. dhinaca militariga, Israa'iil ayaa sheegtay in ay weerar ku bilowday bartilmaameedyo ku yaala bariga Tehran. Iiraan ayaa iyana la sheegay in ay weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion iyo goobo kale oo Israa'iil ku yaala. waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya duqeymo ka dhacay duleedka Tehran inay ku dhinteen 4 qof oo rayid ah. weerar ayaa sidoo kale maanta ka dhacay Beirut oo caasimadda Lebanon, taasi oo ay qaadeen ciidamada Israa'iiliyiinta. gantaalo laga soo tuuray Lebanon ayaa ku dhacay dhul Israa'iil ay maamusho iyadoo khasaarana la sheegayo. warar kale ayaa sheegaya in Mareykanku uu ka fiirsanayo qabashada ama go'doominta jasiiradda Craig oo si loo furo marinbiyoodka istiraatiijiga ee Hormuz. tani haddii ay dhacdo, Mareykanka waxa uu arkaa guulo weyn inuu gaari karayo, laakiin dowladda Iiraan qudheeda waxay u aragtaa haddii Mareykanka halkaas soo fadhiista dagaalku in uu ka dhib yaraanayo sida uu hadda yahay. dhinaca kale, Iiraan waxa ay sheegtay in la burburiyay 16 doonyood oo ganacsi ah oo ku sugnaa dekad ku taala duleedka dalka koonfureed ee magaalada Tehran, iyadoo maalmihii ugu dambeysana arrimaha diblomaasiyadda ay xiisaddu meel adag gaartay. dowladaha Japan, Jarmalka, Holland, Faransiiska, Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa dowladda Iiraan ugu baaqay in ay si degdeg ah dagaalada ay ku qaadayso gobolka bariga dhexe ay u soo gabagabaysay, isla markaana la raadiyo xal ka bedelan sida xaaladda gobolku haatan ay tahay. dagaalka weli waa soconaya, dhinacyaduna waa is ugaarsanayaan. wixii soo kordha tabinteena kale ayaan idinku sheegayaa ciid wanaagsan.